aniga waxaan ku yiri aabo hoosta dekaha galin wuxuu yiri waay waxay waan isku kaajiso ma xirnay suwaal iyo nigis waxaan la xiranahay shaar marka wuxuu yiri hayo waa okay marka waxaan dareemay asigoo ita taabanaya waan qaboway waan cabsaday marka waxba ma ah marka khaliisha madaxeeda walaasheeda iyo khaliisha madaxeeda soo taagtay marka gacantiisu wuu dhacay wuxuu oo khaliisha hooyadaada ku doonaysa bax dushata hooyo ku doonaysa waxay tiri okay aniguna waan cabsanay waxba ma oran karo hadalkii afka ka soo baxaya marka dushu ay tagtay waxaan dareemay dekaha agteeda oo kor iyo hoos soconay laakiin wuxuu sameeyay aniga marka anigu u taabsanay hal mar daawada iga geliyay haye habeenkaasoo dhan anigu le igu ciyaarayay ha ooynin haye anigu igu ciyaaray dabada xooga iyo xanuunsa kas dabada uun igaaga sameeyey and then for months or like the second daygii anagoo dhan aan hoos joogna anigoo cabsanayo anigu wuxuu igu yiri dhagaha oo aabayaasha oo dhan ilmahooda sidan ay ku sameeyaan waa okay so aan cabsanay anigana ma doonaynin aan waxaan leeyahay inta aniga sin I thought I was committing sin because aabahayga maskaxdeeda waxaan isku jeeda oo waxaan aabbaha uu ku sameeya ilmahiisa laakiin aniga maskaxdeeda waxay ugu jirta ma doonayo laakiin haddan ilaahay wuxuu ii qorayaa oo xaaraam camal ah because aabahaygan diiday marka anigoo secondary anagoo dhan hoos joogna aniga sariirta agtiisa aan jiifaa laakiin wuxuu doon inuu badka ii gashto anigana waan iska riixaya asigana wuxuu waay maxaad ii riixaysaa naya xaggan imaa marka waxay maaye marka hooyaasaa ii eegtay hooyana waxay naaska siinaysa walaalkaygiya ee naaska siinaysa and then hooyo waxay ugu tiri like third fourth day hooyo waxay ugu tiri waay maxaad iskaaga dhigaysaa inuu aabahagana shisheeye yahay anina waxba ma oran waan cabsaday so for months like 3 months bilo waa 3 bil meelaha wuxuu ugu sameeyay dabada and then excuses oo igu oranay like first wuxuu yiri aabayaasha wuxuu ku sameeyaan ilmahooda marka wuxuu yiri waxaan ku ready kaaga dhigaya ninkaaga sida u ogaatay waxyaalaha loo sameeyo marka wuxuu yiri hooyadaada in soo diida aabahaaga waa inaa habbi ka dhigtay marka dabadu ahaa after 3 months wuxuu noqday horta like horteed ku sameynaya so hadda labada meel ugu sameynaya marka any chance aan guriga joogo marka even aan il noqdo aan jirado weli iskuulka waan tegi jiray because waan cabsanay ma doonayo waxaan so the first bill waxaan unay okay uu ahaa hoos ugaaga sameynaya xanuun waxaan iska riixayan waxaan unay inuu ilaahay ii qoriyo oo inanka waa inan xun aabaheeda marka hal maalin iskuulkaanu joognay waxaanu daawanayay precious waxa weeye